madaxweynaha cusub ee Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa safarkiisa ugu horeeyay oo ku tago meel ka baxsan wadankiisa ku yimid Jamhuuriyadda Djibouti kadib markii uu martiqaad uu ka helay madaxweynaha Jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele diyaaradii qaaska ahayd ee sidee madaxweynaha Soomaaliland markii ay ka soo degtay dhabaha garoonka diyaaradaha waxa halkaas ku soo dhaweeyay wasiirka arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga mudane Maxamuud Cali Yuusuf sidoo kale waxa uu joogay qaar ka mid ah xubnaha xukuumadda madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa booqashadiisa ku helinayay qaar ka tirsan xubnaha xukuumadda Soomaaliland intaasi kadib madaxweynaha Soomaaliland ayaa u soo dhaqaaqay qolka martida ee VIP ee garoonka Xumbuli International Airport waxaana halkaas uu kula kulmay madaxweynaha Jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele waxaana ay ka wada hadleen xiriirka ka dhaxeeya Jamhuuriyadda Djibouti iyo Soomaaliland iyo muhiimada ku aadan xiriirkaasi iyo sidii loo sii xoojin lahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa qasriga madaxtooyada ku qaabilay madaxweynaha cusub ee Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo dalka ku jooga booqasho 48 saacadood waxaana ay ka wada hadleen xiriirka iskaashiga wada shaqaynta ka dhaxaysa Jamhuuriyadda Djibouti iyo Soomaaliland iyo sidii loo sii horumarin lahaa Jamhuuriyadda Djibouti iyo Soomaaliland ayaa waxa ka dhaxeeya xiriir aad u qoto dheer waxaana ay wadaagaan xuduud dhaqan iyo diin intaba sidoo kale waxa ay isweydaarsadaan ganacsiga iyo dhaqaalaha labada dhinac iyo labada ummadood u dhaxeeya sidoo kale waxay ka shaqeeyaan istaraatiijiyada cusub oo ay ka mid tahay la dagaalanka argagixisada iyo ka hortagga dambiyada ka dhaca xuduudaha waxa sidoo kale u joogay kulankaasi mas'uuliyiinta xubnaha xukuumadda dalka iyo wafdiga madaxweynaha Soomaaliland ku helinaya booqashada madaxweynaha Soomaaliland waxa ku helinayay xubno ka tirsan xukuumadda Soomaaliland oo ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire wasiirka waxbarashada Soomaaliland Yaasiin Xiir wasiirka garsoorka Soomaaliland Cabdiqani Caataye sidoo kale waxa ku helinaya taliyaha sare ee ciidanka booliska Soomaaliland Cabdilaahi Fadal Ibaan iyo taliyaha sare ee ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland Cabdi Xirsi Ducaale waxa kale oo dhanka mas'uuliyiinta dalkeena u joogay wasiirka arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga mudane Maxamuud Cali Yuusuf wasiirka garsoorka qaabilsan jeelasha mudane Muumin أحمد شيخ وزيرك وحبرشته مدن مصطفى محمد محمود يا أقاسمها عيدن كبوليس كقرن كورنيل عبد الله عبد فارح أنت سكدب وحى أن ورئيس الله يلني وزير كريمها دبدا سوماليلاند دكتور سعد علي الشرع يا فاهين نقصي كلن كدحمري لبدا مدحوينه وحى أن ويري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نساو رسع تامبا مدحوينها جمهورية سوماليلاند المسبح عبدي هلكم حكويمي زيارو كويمي صاحب تنمو وهي متسو جيرينه
وعادته waxay ahayd in madaxweynaha Soomaaliland halkan ay noqoto wadanka ugu horeeya uu yimaado isagoo ku yimi martiqaad uu fidiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti si wanaagsan ayaa naloo soo dhaweeyay aad iyo aad u qiimo badan aadna waan uga mahad celinaynaa madaxweynaha iyo wasiiradiisa wasiirka arrimaha dibadda iyo shacabkaba sidii wanaagsan milgada lahayd ee naloo qaabilay maanta halka waxaan isugu nimi shir baan isugu nimi labada madaxweyne ku kulmeen iyo wufuudi la socotay labadaba waxyaabo fara badan baa laga hadlay oo la xiriira danaha labada dal sidii la saakaashan lahaa dhinac walbaba dhinaca bulshada dhinaca dhaqaalaha dhinaca maxay raadaya xagga nabadgelyada laftigeeda waxa kale oo ka wada hadalay arrimo la xiriira guud ahaanba gobolka nabadiisa iyo mataqaanaa midnimadiisa iyo soo dhaweyntiisa si wanaagsan bay noogu dhacday shirkaas noogu dhacay jawi wanaagsan uu ku dhacay insha Allah billahi kariim waxaan rajaynaynaa inuu noqdo bilow maxay raadaya cilaaqaad ka sii xoogsama amba ka sii adkaada kii hore noo lahayn insha Allah arrimo la xiriira xagga security-ga labada dhinacba ayay u socdaan labada generaal isagu yimaadeen dhigoodana insha Allah wala kulmi doonaan dhankiisa waxa aan waraysi la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga mudane Maxamuud Cali Yuusuf ayaa nooga waramay sidoo kale kulankan dhexmaray labada madaxweyne iyo sidoo u dhacay bismillaahir rahmaanir rahiim ta ugu horeysa mudane madaxweyne Muuse Biixi madaxweynaha Somaliland booqashadu ku yimid Djibouti waxay tilmaam iyo tusaale u tahay horta qadirinta labada dal iyo labada shacab ay isku qabaan iyo kolkii la doortay kadib booqashada ugu horeysa ee dibadda ugu baxay oo Djibouti uu ku booqday waxayna tusaysaa inay maaragtay xiriirka labada dal uu yahay xiriir aad u fiican oo mustaqbalkiisuna uu fiican yahay sidoo walaalkay Saad u sheegayba labada dal waxay iskaashi ay badan ayay doonayaan inay maaragtay ay hirgeliyaan iskaashigaasina kii adeeg bulsho maahine ku dhaqaalo oo fiican ayaa maanta noo muuqda kolka waxyaalo badan baa wadaagnaa iyo dhulkaba ganacsiga hadii laga hadlo xuduudan sidii maaragtay si fiican la isku furi lahaa iyo dadweynaha labada dadweynihiisi sidii maaragtay uga talaabi lahaa xuduudana waa laga wada xaajooday dabadeedna saad og tahay gobolkeeni dhibaatooyin badan baa ka taagan iskaashiga nabadda iyo nabad sugintana labada dal waa iskaashi loo baahan yahay la dagaalanka burcadbadeedka iyo argagixisada taasina horumarka labada dal ayay maaragtay ayay qiriqir ay galiyaan oo horumarkaas bay maaragtay ay carqaladeeyaan mowduucyal kale ama arrimo kale fara badan ayaan iminka gudiyaashii loo soo saaray ayaa wada fadhiisan doona gudiyaashaasina in baa sii jirayay kuwa jadiidana waa la asaasay waa la abuuray gudiyaashaasina iminkay maaragtay fadhiyaashoodii qabsan doonaan sidaan u arkayo mustaqbalka maaragtay iskaashiga iyo xiriirka labada dal aad buu fiican yahay mar labaad waxaan leenahay horta hambalyo aan leenahay dadweynaha Somaliland doorashadan adag si fiican si dimuqraadiyad leh oo qurux badan oo quruxsan uga soo baxay hambalyo kalena waxaan u jeedinaynaa dadweynaha mar labaad si nabadda dalka ay u hayaan nabadaasina aad bay qaali u noqotay gobolkeena saad u ogtihiin dalalka dariska dalal badan baa ayaa maaragtay nabadaasi ay ka maqan tahay maanta hadii hadalkayga ku gabagabeyn lahaa waxaan oran lahaa Somaliland iyo Djibouti waa dal laba dalo darisa laakiin haddana waa wadajir iyo walaaltinimo iyo maaragtay qoraabo waxa la badan ay u dhaxayaan taasina annaka Dr. Saad booqashadiisii ugu dambeysay waxaan kala seexanay heshiis ku magac dheer frame agreement maaragtay mowduucyal badan aad lagaga hadlayo heshiiskaasi wuxuu furayaa albaab badan sidaan hore u sheegayba albaabadaasina gudiyaasha ayaa lagu magacayn karayaa gudiyaashaasi kuleyba laba dal korka laga hadlayo aad bay u far badan yihiin kolka waxaan ku horeynaynaa kuwa ugu waaweyn labada wasaaradood ee arrimaha dibadda labada wasaaradood ee arrimaha gudaha iyo kuwa la xiriirsan maaragtay ganacsiga iyo arrimaha badda ku xidhan Sabtu waxu maamul
madaxweynaha Soomaaliland ayaa booqasho ku soo maray sidoo kale dhammaan marsooyinka dalka waxaana booqashada ku wehelinayay wasiirka arrimaha dibadda mudane Maxamuud Cali Yuusuf iyo wasiirka gaadiidka mudane Maxamed Abduqaadir Muuse Xilim iyo la taliyaashiisa waxaana ugu horeyn uu soo booqday goobta kacagan cashuuraadka waxaana halkaas ku soo dhaweeyay gudoomiyaha goobaha kacagan cashuuraadka mudane Abubakar Cumar Xadi kulankaasi ay gaaban ay ku wada qaateen qolka martida ayaa looga micno bixiyay goobta kacagan cashuuraadka iyo sida ay u shaqeyso madaxweynaha Soomaaliland iyo hawlaha ay qabato goobtan kacagan cashuuraadka intaasi kadib madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdiga warkacayo ayaa u dhaqaaqay inay soo indhayaan marsooyinka dalka gaar ahaan marsada terminal continental waxaana laga micno siiyay shaqooyinka kala duwan iyo adeegyada ay bixiso marsada terminal continental waxaana faahfaahin ka siiyay gudoomiyaha goobaha kacagan cashuuraadka mudane Abubakar Cumar Xadi madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdiga horkacaya ayaa u dhaqaaqay inay soo indhayaan marsada Dorale Multipurpose ee loo soo gaabiyo DMP oo laga helo adeegyo casri ah oo noocii ugu dambeeyay ee marsooyinka waxaana halkaas ku soo dhaweeyay agaasimaha marsooyinka dalka mudane Saacad Cumar Geele waxaana uu faahfaahin ka siiyay sida ay u shaqeyso marsadan cusub ee Dorale iyo shaqooyinka kala duwan ee qabta oo ah mid casri ah oo ku shaqeysa noocii ugu dambeeyay intaasi kadib madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa qada sharaf ugu sameeyay qasriga madaxtooyada ee dalka madaxweynaha cusub ee Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdiga horkacayo qada sharaftaasi ayaa ahayd meheesra tan iyo markii la soo doortay madaxweynaha cusub ee Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi 22 November ee sanadkii 2017 ayaa waxa uu booqashadiisii ugu horeysay ku yimid jamhuuriyadda Djibouti nabatirao dunidu way tiigsato alana tam looga dhigay takeega sayaalaha ayaa isku toosiyo kalada gobolaysiga dalkeenu ku tirsan yahay dastuurka ayaa ku daray madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa markii ay u soo dhamaatay booqashada 48 saacada ee ku joogay dalka waxa uu dib ugu laabtay caasimadda Soomaaliland ee magaalada Hargeysa waxaana halkaasi ku sii dhaweeyay dhabaha garoonka diyaaradaha markii uu ka baxayay wasiirka arrimaha dibadda mudane Maxamuud Cali Yuusuf iyo xubnaha xukuumadda oo u joogay sabootinta madaxweynaha Soomaaliland waxaana taasi ay ka turjumaysaa xiriirka u dhaxeeya jamhuuriyadda Djibouti iyo Soomaaliland waxaa ka daran intuu weli noo tariyo tuu inoo soo wadee kamida tamartiyo biyaa dhaqaalaan tabagalay weliba taa waxaa ka daran intuu weli noo tariyo kamida tamartiyo biyaa dhaqaalaan
kale ka daran